السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. isku soo noqod wanaagsan walaalayaal waa halkan iyo channelkeeni maanta waxaan dib halkan ugu bilaabay casharada insha Allah taala anagoo maanta waxaan hayaa insha Allah taala cashir aad iyo aad u xiiso badan san dareemayo aad waxaan filayaa inaad aad u heli doontaan ereyas waa ereyo kooban oo aan aad u badnayn waa saddex erey oo ah sida halka ku aragto on ah in and use isticmaalka of on isticmaalkeeda in isticmaalkeeda and isticmaalkeeda way walaalayaal waxaan marka hore oo inka hor dhici lahaa insha Allah taala inaad marka hore hadii channelka aad ku cusub tahay fadlan subscribe dhe gamalka taabo si cashir doosho oo joogto wayso cashirka waxaan fadlan mar waliba aan ku dhiirigelinayaa akhristaan dhamaystirataan si fiican u dhageysataan waliba aad sii degsataan oo jeebkiina aad ku shubataan marka wada jeebka ku shubo si mar walba uu diyaarku waa waraaway cashirka wali soo bixan dib u dhageysan mar walba aad tiraad insha Allah taala muxuu ahaa marka insha Allah taala markaad ka heshana maxaad noo dhahdaa sheeg like noogu dadaal si aad maxaan ku raadaaye aad noogu dhiirigeli insha Allah taala like ta inoo taaba share da waliba noo share garay mar waliba share garay insha Allah cashir walba ani ka codsan leeyahay insha Allah taala dhageysanaysa cashir walba aragtaan fadlan share garay si macaamiisha u badato share garay insha Allah taala intaas maalinka ugu deeqa insha Allah yana laga xasin share ina dhahda fadlan insha Allah taala ka xasin intaas noo share garay maalin waliba okay use of on isticmaalka on in isticmaalkeeda and isticmaalkeeda fadlan waxaan leenahay this word is eradan waxa way useful kuwa muhiim ah in our daily speech hadal maalmeedkeena daily waa wax maalmood joogtada speechna waa maxaan ku raadaya hadalka maalmo aan sameeyna aad bay ugu badan yihiin this word is eradan are useful wa muhiim in our daily speech hadal maalmeedkeena now hada let us ina keena waa wada jirnaa lan aan barana how sida to put loo dhiga dam ayaga in sentence jumlada loo geliya in sentence jumlada loo geliya bal aan barana keena haye on maxaa marka waxa laga yaabaa inteena badan in aan on u naqaana kor war on waa maxay waa kor on maxaa waa kor hadii meeqa erey baa English loo isticmaalaa kor waxa loo isticmaalaa erey badan baa loo isticmaalaa laakiin aniga ma aaminsani mana u aqaano ereyga on ah inay tahay kor waxaan aniga saaran weeyaan on saaran mana waa shay dul yaala hadii shayga hada buuga miiska saaran intaad buuga kor u qaado miiska korkiisa aad ku qabato miiskana uu saaran ma kor adag qaado ku dul qabato buugi miisku saaray mana on the book is on the table ma dhihi kartid hadii the book is above the table the book is over the table the book is something like that laakiin ma dhaysid the book is on the table waa goorma waa markuu buuga miiska dul saaran yahay hoos mana is hayaan labadood ee jirkooda is hayo weeyaan bad on dhihi kartaa laakiin buugi baan kor u qaaday miiska korkiisa ku hayaa on baan dhahayaa saxma marka kor ma dhaysid waxa weeye saaran weey fadlan aad u fiirsada saaran on is always badana used wal isticmaala in two ways laba hab loo isticmaala in two ways laba hab ayaa loo isticmaala way always badana used wal isticmaala in two ways labada hab waa labada hab oo A iyo B ah midalan waa sida caadiga shay dul saaran iyo maalmaha ayaa loo isticmaala ka badan baa loo isticmaala laakiin hadda si aad u fahanto ayaan laba ku dhahaya laakiin meelo badan ay gashaa markaan luqadda aad barato wada arki doontaa insha Allah taala way on is always used in two ways loo isticmaala jumlada koowaad waxaan leenahay the pen qalinka is on wuxuu saaran yahay the desk miisku saaran miiska korkiisa the pen is on the desk miiska korkiisa ama uu saaran baad dhigi kartaa laakiin kor ma dhigi kartaa kor reemreys the book is alas aan ku darsado ayaa iga dhiman the book is on wuu saaran yahay the desk miiska ayuu saaran yahay to soo kale is on wuu saaran yahay the desk miiska there is waxa ahead koofiyad ba on saaran yahay head madaxada there is head koofiyad ba on your head madaxada korkiisa mana uu saaran is on saaran the head koofiyad on saaran yahay head madaxaga there is waxa a bird shimbir ayaa on the tree geedka dushiisa on mana saaran there is waxa a bird shimbir on saaran the tree geedka there is a bird on the tree geedka dushiisa waxa saaran shimbir the mobileka was on wuxuu saarnaa the shelf iska fala
the mobile was on wuxuu saarnaa the shelf iska ballaha ayuu saarnaa on ana saaran weeyaan was maxay sheegaysaa mar hore was wuxuu ahaa istanna hadda weeyaan I will halkaas lafteeda id an insha Allah taala ku bedelo aan kaga dhigo I will come waan imaan doonaa on Monday maalmaha si loo isticmaalo fiirada marka I aniga will doonaa will come waan imaan doonaa on Monday maalinka Isniinta on I will come waan imaan doonaa goorme on Monday maalinka Isniinta we saw waan aragnay him asaga goormaad aragteen on Tuesday maalinta leedahay we saw him waan aragnay on Tuesday maalinta leedahay marka maalmaha ayaa loo isticmaalayaa salaada korkeedii Isniinta korkeedii ma dhaysid maalinta baa iska cabiraysaa the old man ninkii weynaa ee duqa ahaa old man died wuu dhintay goorma dhintay on Friday maalinka Jimcaha the old man died on Friday jimcu dhintay jimco let us in a can meet and kulanne goorma on Saturday maalinka sabtiga ah let us in a can meet and kulanne hore aan kulanno on Saturday maalinka sabtiga on maalmaha ayaa la isticmaalaya the schoolka will open wuu furmi doonaa on Saturday maalinka on Sunday and the schoolka will open wuu furmi doonaa will on Sunday maalinta axada on maalintaas dusheeda wuu furmi doonaa waayahay halkaas waxaan ugu dhamaaday on in bal aan ilaalna in maxaa la dhahaa in sidaan u naqaano maxay in waxaan dhahnaa adeeg warweynaha maxay waa gudaha waa gudaha laakiin maxaan dhahaynaa ku jira ama dhex yaal ku jira dhex yaal ama dhex jooga dhexdii weeyaan in waa ku jira idan ku jira weeyaan jeega caana ku jiro markaa leedahay مثلا gudaha ma dhaysid gudaha waa loo isticmaali karaa hebel awl ways hebel is in guduhu ku jira in the house guriga gudihiisa in waa dhihi kartaa ama laakiin ku jiraan lena marka waxaan dhahaynaa there is waxaa some money xoogoo lacag ah in my pocket jeebkayga dhexdiisa manaa jeebkayga ku jirta in ku jirta my pocket jeebkayga there is some money xoogaa lacag ayaa in my pocket some xoogaa money lacag ah in my pocket jeebkayga there is waxaa somebody qof there is waxaa somebody qof ayaa there is somebody qof ayaa ruux ayaa in the house guriga dhexdiisa in the house guriga dhexdiisa in dhexdiisa there is somebody qof ayaa in the house there are waxaa more trees geeda badan in the garden beerta dhexdeeda there are waxaa more trees geeda badan in gudaha the garden beerta there is waxaa water biyo in the jeega dhexdiisa jeega ku jira weeyaan there is water biyo ayaa in the jeega ku jira in gudaha the jeega waayahay the bottle dhalada is in waxay ku jirtaa the basket the meesha the bottle is in the basket is in gudaha the basket ayay ku jirtaa the meesha I work waan shaqeeyaa in the hospital bisaga ka shaqeeya I work waan shaqeeyaa in gudaha the hospital ka shaqeeya I work in the hospital in gudaha the hospital bisaga ka shaqeeya waayahay the car gaariga is in wuxuu ku jiraa the garage ku jiraa the car gaariga is in uu ku jiraa the garage ku jiraa he asaga was born wuu dhashay waqtiga kale waa loo isticmaalaya matalan meel baa loo isticmaalaa waqtiyada loo isticmaalaa waa tan fiir he was born wuu dhashay in Mogadishu he was born in Mogadishu ku dhashay gudaheeda they ayaga live way ku nool yihiin in Banaadir gobolka Banaadir ku nool they live way ku nool yihiin xagee in Banaadir gudaheeda ku nool she was born way dhalatay she ayada was born way dhalatay ama waa la dhalay in 2010 in waa sanadkii dhexdiisa maana 2010 2010 ayay dhalatay she was born way dhalatay in 2010 ay dhalatay u fiirso marka in waa sanadkii dhexdiisa maana in sanadkii dhexdiisa in last year something like that in this year sanadkan dhexdiisa something like that in gudaha she was born waa la dhalay ama way dhalatay in 2010 ayay dhalatay anda hoos anda maxaa la yidhahdaa war anda waa maxay qofka wax leedahay anda maxaa la dhahaa hoos buu ku leeyahay hoos maaha hoos maxaa meeqa erey hoos ah down ma deeginina waxaan leenahay fadlan u fiirso anda waa hoos yaalla anda waa hoos yaalla sida saxda waa hoos yaalla ama hoostiisa ama hoosteeda ama hoosteyda markaa leedahay saas weeyaan leanna waxaa waaye anda ma isticmaali kartid banaankaas adoo taagan anda ma isticmaali kartid waa inaad aragto shay hoos yaalla shay kale hoostiis yaalla unbaa loo isticmaali karaa markaas filmaan kartaa marka hoos ma dhayside waa hoos yaalla weeyaan
the cat aan aragno the cat bisada is under waxay tahay hoos joogtaa the bed sariirta the bed is under the table and under the bed sariirta hoos ku jirta bed waa sariirta under hoos ku jirta marka sariirta hoos he asaga is sitting wuu fadhiyaa under the tree geedka hoostiisa geedka hoostiisa under the tree geedka hoostiisa under hoos macnaha hoostiisa geedka hoostiisa macnaha under the tree the bowl baaquliga is under wuxuu hoos yaala macnaha table is under the table under the table is under the table the bowl baaquliga is under wuxuu hoos yaala the table miiska hoostiisa under the table way under macnaha miiska waad fiirinaysaa baaquliga hoostiisa yaala marka wuxuu yaala miiska hoostiisa yaala under the table laga hadlo u fiirso way ninka la yiraahdo muxuu ahaa my bag boorsadayda is under waxay hoos taal the desk miiska my bag hoosayda is under waxay ka hoosaysaa mana under the desk miiska the boys wiilasha are playing way ku ciyaarayaan under hoosta the big tree geedka weyn the boys wiilasha are playing way ciyaarayaan under the big tree geedka weyn hoostiisa mana hoos under she is wearing waxay xiran tahay a vest garan bay xiran tahay she is wearing a vest garan he is wearing he asaga is wearing wuxuu xiran yahay vest garan under the shirt shatiga hoostiisa shatiga waa kana way ka hoosaysaa under the shirt he is wearing a vest under the shirt shatiga hoostiisa ayuu vest ku xiran yahay vest waa garanta u fiirso do not sit ha fadhiisan under the wall derbiga hoostiisa do not sit ha fadhiisan under ka hoosaysa the wall derbiga hoostiisa ha fadhiisan there is waxa ah a scale miisaan ayaa under the counter miiska hoostiisa counter waa miiska weyn ee dukaanka yaalla wax lagu cabira miisaamada dul saaran yihiin miisaamadii waxaas dul saaran yihiin ee alaabtii wax la dul saarta yaa counter la dhahaa marka under hoostiisa maxaa yaala scale-kii baa wuxuu yaallaa miiska asaga hoostiisa u yaalla maxaa la yidhahdaa there is waxaa a scale miisaan baa under the counterga hoostiisa maanaa counter miiska maxaan ku rahaa hoostiisa ayuu yaallaa is there anything waxna miyaa under the chair miiska kursiga hoostiisa is there anything under the chair anything waxna under ka hooseeya the chair kursiga ma jira is there anything waxna miyaa under the chair kursiga hoostiisa I hid waxaan ku dhuuntay under the desk miiska hoostiisa manaa hid maxay hidden manaa hid waa dhuumasho hide bay ka imaada waa tagtafog weeyaan tagtafog baasiga maxaa la yihahdaa tagtafog baa la dhahaa present perfectgan waxaa la dhahaa tagtadhow marka kan present perfect hidden bay hadlaysa marka waxaa leedahay I hid waan ku dhuuntay waan isku qariyey under the desk miiska hoostiisaan galay markaan dhuumanayay miiska hoostiisaan galay under the desk under marka insha Allah taala kusoo dhawaada cashirkaas aad u dhageysta macnaha dhuuxa insha Allah taala sida ereyga luqadda ilaa su'aal marka taqaano ereyga markii lagu siiyo adaa luqadaada la aadaya oo sida saxda u fasirna inaad iska dhaxda ma insha Allah taala dhageysi wacan thank you very much aad u mahadsantiin assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh